tirig waya tubti dinti furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii tag daranada taageera siiye tilmaan quruxsani xabiibow hayga taginay محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم وحويان وتاريخ نوليدكي رسولكنا عليه الصلاة والسلام وبقى سيدات بينه بالله بين عوان كيسة زواج عبد الله بآمنة وحملها 10 كانوا وحو كهدلي دونا مركي وغورسدي نبيغا ابيهيس آمنة markii uu guursado nabiga hooyadiisa kaleey salaatu wasalaam sidee labada ruux isu guursadeen nabigeenu ka dhax abuurmay zawaaju abdullaahi oo nabiga aabihiisa markii uu guursaday sidoo uu guursaday bi aamina binti wahab sidoo uu guursaday waan ka warrami doona waxamluha iyo uuraysigeedii markay uur qaaday نبي سيدو كور قلي يحل وريستي أي أيم كور رمضان كان عبد الله بن عبد المطلب إن كلا يراهض عبد الله بن عبد المطلب وحوها من أحب ولد أبيه من أحب كو وجودش عليه ولد أبيه أضيقا مطلب لا يراهض عرورتيس إليه إسقو وجودش على لبي تبويل بودالي أضيقا عبد المطلب لا يراهض عبد الله بوجودش على عبد الله أيو أقول على من أحب ولد أبيه علمه أقول عليه إليه حقيسة وحوها عبد الله فزوجه أضيقاسي وأقوري إنن كيسة عبد الله اللي يراب أقوري إساق أقيد فريستي أضيقو إننتنا أضوني إننت اللي يراب آمنة بنت وهب قبل آمنة بنت وهب بن عبد المناف بن زهرة بن كلاب gabadha abtirsiinta leh ayuu u geed fariistay odayga Cabdulmutalib inankii uu jeclaa Cabdillaahina uu raadiyay imise jirbu ahaa markii nabiga loo aabihii loo doonay hooyadii wasinuhu 18 sana oday inankan Cabdillaahi marka loo guurinaya aamina 18 jir buu ahaa nabiga aabihii 18 jir buu ku guursaday wahiya iyaduna aamina ahi يومئذ مالنتا لا غورسن دونو من افضل النساء قريش هبله هذا توغسدتي اهيد نصبا حق حيبتا وموضعا هي ماشي كسو جيدبا والله دراعي غبدا ولما دخل عليها مركي اي اسكورسدين او قلمودي حملت بالرسول صلى الله عليه وسلم وحي اوريستي امنه نبي عليه الصلاه والسلام ولم يلبث ابوه أبيه ما بسين نجاني نبي أبيه بالوجهه ولم يلبث إرجع وفرسه موسى شوجين بقى أبوه أبيه أن توفي إن لا أفسده ودنته بعد الحمل مركي إسلامته ورئيسته بشهرين مركي لباب بلاد أور لهيد بابور دنتاي أضيقي جيريدو كما دبد عمبو كمان نجاني ودنته بعد الحمل مركي أي ورئيسته بشهرين laba bilood bay uur lahayd marka uu dhimanayo Cabdullaahi isagoo 18 jira wadufina odaygana Cabdullaahi waa la xabaalay oo waxa uu ku aasan yahay bil Madiinati magaalada Madiina layra marka ayuu ka tagay Madiino aaday sabab inda akhwaalihi waxaanu markaa ku agdhintay abtiyaaladii banu Adiy ibn an-Najjar reerka dhalay oo maxaan ku dhahdaa ansaarta ah وعدي بن النجار لو رنجري ريركاس أيو أكتوذا كوا فادي صببت محايا هاي فإنه كان وحوها قد ذهب بتجارة إلى الشام وحو أسفر ودقاقي إنه الشام كسو تجاريستو بايع مشتري بوها يوم حقا إيا سوريا أيو ربي إنه كسو تجاريستو مدينو سيمري انتانو الشام بقارين فأدركته وحا حالي شيء منيته المانية الموت مركو 18 جير yahay isagoo safar baayac mushtari u baxay oo wali maqsadkiisiiba gaadhina Madiina sii maraya Madiina loo sii mari jiray marka Shaam la tagayo فأدركته وحا حالشي منيته geeridiisi bil Madiinati bay ku helaan shay وهو راجع
markii uu soo gadoomay weeye markuu ka soo gadoomay shaam ee safarkiina uu soo qaato madiine marayo ayay halkaa geeridii ku haleeshay waa soo gadoonkiisii walamaa tamat markii ay dhammaatay muddatu xamli aamina aamina sidkeedii markuu dhammaado 9 bilooda wadacat waladaha wiilkanay dhashay inankeedii bay dhashay fastabshara alcaalam caalamka oo dhan bay bishaaro u soo hoyatay bihada almawluudi alkariim midkan la dhalay ee kariimka ee sharafta leh oo nebigeennii ah maalintii ay hooyadii dhashay caalamka oo dhan uu guulaystay inankaa dhashay guul bay ku heleen alladii midkiibaa dhashay baha faafiyey fii arjaa'ihi daafaha adduunyada ruuxa alaadaab aadaabta nuxurkeedii aadaabta fiican nuxurkeeda shaksigii horseedka ka ahaa maalintaasu dhashay wa tamama axadkii dhammaystiray makaarima alakhlaaq akhlaaqda tii ugu karaamo badnayd rasuulkii soo afjaray ee soo gebagabeeyey ee dhammaystiray maalintii uu dhashay bay maalintaasi ahayd waqad xaqaqa wuxuu hubiyey almarxuum maxamuud baasha ninka la yidhaha maxamuud baasha alfalaki oo yaqaana sida xidiguhu ay isu daba guuraan ninkaas oo yani xidigaha yaqaanay taariikhda halkaa ka garan jiray wuxuu xaqiijiyey anna daalika maalintaa uu dhashay nebigu kaana waxay ku beegnayd sabiixata yowma alithnaini maalin isniin ah subaxnimo ah ayay ku beegnayd taariikha rabiici alawal oo bisha rabiici alawal ay ahayd taariikhdeedu waaye taasica rabiica alawal oo maalintii 9aad rabiici alawal bay ahayd almuwaafiq waxayna ku beegnayd xagga liyowmi alcashriina taariikhda gaaladana waxay kaga beegnayd maalintii 20aad min abriil bisha abriil la yidhaahdo sanadku markuu ahaa 571 ninkaa maxaanku idhahdaa xidigiska yaqaanay marka uu raadraac sameeyey maalintay ku beegnayd dhalashada rasuulku isagu wuxuu soo saaray oo xaqiijiyey 9kii rabiici alawal inay ahayd oo ku beegan 20kii abriil 571 min almiilaadi oo taariikhda ruumiyiinta ah ee gaalada wa huwa yuwaafiqu sanata aluulaa min xaadithati alfiil waxaanay waafaqaysaa sanadkii koowaad oo dhacdadii fiilka dhacdadii maroodiga arrinkii maroodiga ee alamtara aan kaga warramaynay sanadkii ay dhacday ayay ku beegan tahay awaa'ilkeedii wa kaanat wilaadatuhu fii daari abi aalib halka uu ku dhashayna waa xaruntii gurigii abu aalib guri abu aalib lahaa buu ku dhashay bishicbi bani haashim meel gol ah oo 2 buurood ka kala jeexan yihiin hoosteeda ayuu gurigaasi ku yaalay shicbigaasoo bani haashim la yidhaahdo maanta haddii aad xaramka ilaahay ku geeyana waa meesha uu ceelka weyn ee samsamka laga dhaansado maktabadda yaroo u dhow halkaa weeyaan maktabadda lagu yani kutubta yani laga qaato halkaasuu gurigu ka dhisnaan jiray waxaana la odhan jiray shicbi bani haashim baa la odhan jiray meesha goshaa yaree dadku deganaayeen wa kaanat qaabilatuhu umulisadiisu waxay qaabiladu waxa yani islaanta ka umulisa carruurta ayaa qaabila af carabiga lagu yidhaahdaa gabadhii uu ka umulisana magaceeda waxaa la odhan jiray ashafa umu cabdiraxmaan binu cawf cabdiraxmaan binu cawf oo casharatu lmubashiriinka ku jira hooyadii ayaa nebiga madaxa qabatay oo ka soo umulisay aamina walamaa wulida markii la dhalay rasuulkeenna arsalat ummuhu aamina ayaa u cidirtay lijaddihi awowgii oo cabdilmuطaliba tubashiruhu iyadoo u bishaaraynaysa cabdullaahi wuu dhintay already waxaa nool awowgii oo cabdilmuطalib ah markii uu nebigu dhashay aamina ayaa waxay u cidirtay nebiga awowgii oo waxay ugu bishaaraysay inuu wiil dhashay fa aqbala wuu soo qaabilay masruuran isagoo aad u faraxsan odaygaasi wa sammaahu muxammadan isagaa u magac bixiyey awowgii baa magaca u bixiyey muxamed ah walam yakun may ahaan jirin haada alism magacaa uu u bixiyey shaa'ican mid aad looga yaqaano oo carabta ay ula baxdo qablu intaa ka hor cinda alcarab carabta dhexdeeda
magaca ku caanbaxay oo lala bixi jiray yaala muu ahayn waa magac reera buu ahaa oo aan yaalaa lala bixin magacaasi carabta kuma badnaan jirin walaakin hase yeeshee araada allahu ilaahay baa damcay an yuxaqiqa inuu xaqiijiyo maa qadarahu wuxuu hore u qorsheeyey rabbi wadakarahu fi lkutubi alatii jaa'at ee uu ilaahay ku sheegay kutubtii hore bihaa iyada alambiyaa uu siiyey ambiyada katawraati walinjiil towraad iyo injiil magaca ku sheegan inuu xaqiijiyo ayaa ilaahay damcay laakiin carabi magaca caan kuma ahayn oo lalama bixin jirin kebigaba waxaa la yidhaha 4 qof baaba carab wax muxamed la yidhaha ka horreeyey nebiga 4 qof carabtu yaalaa magacan muxamed mabay oqoonba laakiin rabbi baa wuxuu damcay magaca ku yaala towraad iyo magaca ku yaala injiil inuu ilaahay xaqiijiyo faalhama rabbi baa carabka ugu riday jaddahu awowgiis an yusamiyahu inuu u bixiyo bidaalika magacaas infaadan liamrihi inuu ilaahay hirgeliyo fuliyo amarka uu damacsan yahay oo towraadna waxaa ugu yaalay magaca muxamed ah injiilna waxaa ugu yaalay magaca muxamed ah carabina magaca muxameda yaalaa lama bixin jirin si ilaahay u xaqiijiyo qorshihiisa ayaa carabkii cabdilmuطalib ilaahay wuxuu ku riday uun inuu magacaa bixiyo wa kaanat xaadinatahu gabadhii ugu horraysay ee marada ku qabatay ee xadaanaysay waxay ahayd ummu ayman barakat alxabashiya gabadha ummu ayman la yidhaahdo ayaa dabadeedna maradii ugu horraysay ku qabatoo xanaanaysay nebiga amatu abiihi cabdillaah gabadhan ummu ayman la yidhaahna waxay addoon u ahayd nebiga aabbihiis wa awalu man ardacahu gabadhii ugu horraysee naaska jaqsiisa naaska hooyadii naaskii ku xigay ee la jaqsiiye nebiga waxaa lahayd huwayba gabadh la yidhaahdo oo nebiga xalimatu sacdiyana way nuujisay gabadhan huwayba la yidhaahdaana way nuujisay hooyadiina way nuujisay nebiga marka dumar dhowr ah ayuu naaskooda jaqay nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wa awalu man ardacahu qofkii ugu horreeyey ee nuujiyey bacda ummihi hooyadii dabadii huwaybatu gabadh la yidhaah bay ahayd ammatu cammihi waxaa addoon ay u ahayd adeerkiis abulahabkii aynu ka soo warranay tabatyada abilahabin odaygaas addoon uu lahaa oo irmaan ayaa naaska ku duuday bacda ummihi hooyadii markay iyadu jaqsiisay caado waxay carabtu u lahayd si uu ilmuhu maxaanku idhaahdaa caanaa badan marka maskaxdooda jidhkiisa uu galo maskaxdiisuna aad bay u waasacnaan jirta bay yidhaahdaan markaa waxay jeclaan jireen in dumar badan ay nuujiyaan ubadkooda si maxaanku idhaahdaa hibada raganimo inay aada ugu soo baxdiyo fahamkiiyo xasuustu marka gabadhii ugu horraysay nuujisay huwaybaa la odhan jiray waxaanay addoon u ahayd cammuhu abulahab oo adeerkiisa ayuu ahaa addoon ay u ahayd wallahu subxaanaه wa tacala aclam